السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ميل والبا joogtiin kusoo dhawaada barnaamijkii caafimaadka channelkaad ka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen maalin walba ama asbuuc walba sida aad nagala socoteen barnaamijyada kala duwan oo caafimaadka ah. Maanta waxaan idin wadaa barnaamijkii caafimaadka ah, laakiin barnaamijkan maanta waa maxay ama mawduuceeni maanta aan kaga hadlayo waa maxay sideed ku ogaani kartaa ama qaabkeed ku ogaani kartaa cunugaaga gabadha markay uurka ay tahay cunuga caloosha ku jiro sideed ku ogaani kartaa in ay wax ka qaldan yihiin jir ahaan maskax ahaan ama sida loo yaqaano birth defect ama birth abnormalities sideed ku ogaani kartaa cunugaaga in ay wax ka qaldan yihiin, in wadnihiisa ay wax ka qaldan yihiin, in maskaxdiisa ay wax ka qaldan yihiin, in lafdhabarteedkiisa ay wax ka qaldan yihiin sida loo yaqaano spina bifida wax loo marka waxani mar walba a series of test baa la hagaajiyaa dacaamo oo hooyada iyo iskaano badan la hagaajiyo baa jirto oo lagu ogaani karo cunugan inay wax ka qaldan yihiin iyo in kale. Marka dacaamadan dhiigan la qaadayo, testigan la qaadayo mostly waxaa la qaadaa 3 bilood ugu horeysa ilaa 3 bilood ku xigto, sida kale 6 bilood ugu horeysa. Marka 3 bilood ugu horeysa dacaamo la qaadaa jirto, 3 ku xigtana dacaamo hooyada iyo iskaano lagu sameeyo ayaa jirto lagu kala ogaani kara waxani. 3 bilood ugu horeysa aan ka bilowno. 3 bilood ugu horeysa testigani waxaa la qaadaa mostly 11 isbuuc markay maamada ay tahay ilaa ay u dhaxayso ilaa iyo 13 isbuuc markay u dhaxayso, that is 11 to 13 weeks markay ay tahay ayaa dacaamadan laga qaadaya. Maternal blood testigan ama hooyada dhiigga laga qaadayo mostly waxaa kamid ah beta hCG wax la dhahayo protein waaye dacaamadan dhiigga laga qaadayo, dhiiggaadi baa laga baaraya. Beta hCG-ga iyo papagan labadaba waxay ku sheegaan haddii kor zaid ay yihiin oo meesha laga rabay looga tirgalay, haddii ka kormarsan yihiin iyo haddii hoos ay jiraan, labadaba waxay ku sheegayaan in ay dhib ay jiraan. testiga kale la sameyn karo oo the first 3 months la sameyn karo waxaa kamid ah testiga loo yaqaano ama scanka loo yaqaano ultrasound scanka oo first trimester la qaadayo 3 bilood ugu horeysa gabadha la saarayo wuxuu ku sheegayaa haddii ay maaragtay cunugii uu si fiican u abuurmihayo, calooshii uu si fiican u abuurmihayo. aan usoo gudagalno marka 3 bilood ku xigto oo 4 bilood wax ka bilowda ilaa iyo 6 bilood 7 bilood laga gaarayo. Testiyaashani ayagana way kala duwan yihiin. Wali hooyada dhiig kala baa laga qaadayaa maternal blood testiga still wuu soconayaa oo laakiin bloodkan la qaadayo 4 test baa laga baarayaa sida loo yaqaano quad test ama triple testiga. Quad testiga waxaa kamid ah alpha fetoprotein wax la dhahayo in laga qaado, waxaa kale kamid ah beta hCG, estriol iyo inhibin A waxyaalo la yiraahdo baa laga qaadayaa. Afartani waxay ku sheegaan haddii cunuga ay wax ka qaldan yihiin iyo haddii kale uu normal uu yahay oo si fiican ugu abuurmayo calooshii. testiga kale waxaa fetal echocardiogram wax la dhahayo ama scanka loo yaqaano fetal echocardiogram. Fetal echocardiogram-kan wuxuu ku sheegayaa cunugii wadnihiisa hadduu si fiican u abuurmayo oo si fiican u maaragtay sidii laga rabay u socdo, xaalkiisa sidii laga rabay uu yahay, wadnihiisa sidii laga rabay ay yihiin ama wadnihiisa sidii laga rabay sida looga tirgalay uu yahay. Marka fetal echocardiogram-kan waxaa kale la socon kara scanka loo yaqaano ultrasound-ka caadiga ah. Echocardiogram-ka iyo scanka caadiga ah labadaba way isla socdaan. scankan caadiga ah wuxuu fiirinayaa cunuga gadaashiisa qoorta gadaal haddii ay maaragtay wax biyo ahaan ah ay u fiirinayaa, cunuga biyaha ku xirsan buu fiirinayaa, intaas in ka badan buu fiirinayaa. Marka waxaan oo test ah waxaa lagu ogaanayaa cunugaaga ama cunuga caloosh ku abuurmahay haddii ay wax ka qaldan yihiin ama birth defects. Testiyaashan markii la sameeyo oo in ay wax ka qaldan yihiin la arko, testiyaal kale oo badan oo la sameynayo ayaa jirto markaa kadib.
asxaabi waxaa soo gaarnay gunaanadkii gabagabadii barnaamijka. Fadlan meel walba joogteen ha ka iloobina haddii aad videoga aad ka heshay ha ka iloobin channelka like, subscribe and share-ka. Waxaan idin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.